salaamu Allaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalada xooggan ee ka socda waqooyiga iyo galbeedka dalka Itoobiya iyo meelaha la kala marayo iyo militariga Itoobiya guulo waaweyn sheegtay dhul ballaaran inuu TPLF dib ugu qabsaday sheegay. qodobada kale ee wararkeena waxaa kamid ah dagaalkii xooggan ee u dhaxeeyay labada qowmiyadood waa Soomaalida iyo Canfarta xagee ama shirarkii la isku afgaran waayay labada dawladood dhaxmaray xagee buu ku dambeeyay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan galab wanaagsan. taariikhdu waxay ku beegantahay 5 bisha 9 2021 hadayna ugu galo wararkeena oo faahfaahsan. dagaaladii xooggan ee ka socday galbeedka dalka Itoobiya ayaa maalinka ka dambeysay ka sii daraya waxaadna moodaa warbaahintu inay ka badashay soo tabinta ay soo tabinayso dagaalada xooggan ee ka socda galbeedka dalka Itoobiya. dawladda federaalka oo maalmihii ugu dambeysay waday abaabul ciidan iyo tababar ciidamo loo furayo kuwa loo soo xidhayaba ayaa waxaad moodaa maalmahan inay guulo gaadhay. dawladda federaalka ayaa ilaa xalay soo bandhigaysay ciidamo fara badan oo loo soo tababaray inay la dagaalamaan TPLF iyo taliyaasha ciidanka shirar waaweyn qabanaya shacabkana u sheegaya inay farxad weyn ku soo baraarugeen. ciidamada militariga dalka Itoobiya saraakiishooda ugu sareysa ayaa shirar waxay qabanayeen ay shacabka ugu soo bandhigayaan guulaha ciidamada militariga dalka Itoobiya ka gaadheen dagaalka xooggan ay kula jiraan TPLF. sidoo kale generaalka howlgelinta dagaalada xooggan ee TPLF lagula jiro ayaa maaray habeennimadii xalay waxa uu sheegay in TPLF gabi ahaanba gobolka Axmaarada lagu jabiyay niyadeeduna ay aad u jabtay waxa ka harana wax gacmaha lagu soo dhigi doono sharciga la horkeeni doono. taliyaha ayaa waxa uu sheegay militariga Itoobiya inuu yahay militari qadiimi ah oo isku filan oo marna u baahan in cid kale garab siisto ama inuu meel kale geeyo codsigiisa in garab laga siiyaha. taliyaha ayaa waxa uu sheegay TPLF ka dagaalamaysa galbeedka iyo bartamaha dalka Itoobiya inay yihiin maleeshiyad yar oo awood u lahayn dalka Itoobiya inay qalalaasa galiyaan ama ay awood ka xayuubiyaan dawladda federaalka ee Dr. Abiy hogaamiyo. taliyaha oo mooday hadalkiisa inuu aad niyadda ugu dhisayay xukuumadda iyo dadka taageera dawladda federaalka ayaa waxa laga dheehanayay inuu taliyuhu hadaladiisu ay u ekaayeen mid niyad dhisa. generaalkan oo ahaa generaalkii howlgalkii waqooyiga dalka Itoobiya dagaalka ay dawladda federaalku bishii November sanadkii hore ay ku qaaday inuu asagu ahaa taliyihii hogaaminayay ayaa haddana hadaladiisa waxa laga dheehanayay inuu niyad sami badan uu sheegay shacabka dalka Itoobiya in niyad jabka weyn iyo soo wajahay dagaalkan aan la garanaynin goor uu dhamaan doono. sidoo kale TPLF ayaa habeennimadii xalay ahayd waa kay waraaqaha ku daayisay magaalada Dhisiya ayna u sheegayso shacabku inay isdejiyaan ciidamada federaalka halka ku suganna ay iskaga baxaan. hadalka taliyaha waqtiga uu soo gabagabeeyay shir jaraa'idkiisa ay TPLF-na waraaqaha daayisay ayadana war saxaafadeed ka soo saartay in magaalada ciidamadu si tartiib ah uga baxaan shacabkana wax dhibaato u geysan. hase yeeshee dawladda federaalka ayaa waxay sheegaysaa iyadu gabi ahaanba inay TPLF ka takhalustay TPLF dambe ka sii dagaalanta gudaha dalka Itoobiya ama galbeedka dalka Itoobiyana inay jiri doonin. hadalada ay TPLF soo saarayso iyo taliska hadalkiisa ayaa ku soo beegmay waqti uu ra'iisul wasaaruhu galabnimadii shalay ahayd uu soo bandhigay ciidamo badan oo ku sheegay inay TPLF cagta marin doonaan noqon doonaan kuwa shacabka Itoobiya ay ku ladi doonaan. taliyaha sidoo kale wuxuu sheegay TPLF ka dagaalamaysa galbeedka Canfarta inay tahay mid aan waxba soo kordhinaynin ayna ku filan yihiin ciidamada halkaas jooga oo loogu tagayninba TPLF. sidoo kale dagaalada ayaa waxa la sheegayaa inay ku sii fidayaan magaalooyin badan sida Filiket magaalada dhaho TPLF ayaa waxay sheegtay in qabsatay. TPLF ayaa waxay sheegtay inay ciidamada dawladdu iskaga carareen markay magaaladaasi ku soo wajahnaayeen oo ay ugu yimaadeen shacab kaliya oo degan oo wax dagaal oo xooggan u magaalada ka dhicin. magaalada Filiket oo magaalo istiraatiiji ah ayaa TPLF waxay sheegtay inay si dhib yar gacantooda ku soo gashay kana sii socon doonto. sheegashada TPLF ay sheeganaysa inay magaaladaasi gacanta ku dhigtay ayaana wax ka madax banaan haynin. sidoo kale qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah dagaaladii xooggan ay u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta ayaa waxaa la sheegay inay halkoodii ka sii socdaan hase yeeshee dagaalo xooggan oo khasaare baan geystay inaan dhicin maanta iyo shalayba. sidoo kale waxaa la sheegayaa inay dagaalo goosgoos ah ka socdaan magaalooyinka lagu dagaalamayo waa sida Garbaciis iyo Candhuufti iyo Cadaytu.
labada dowladood ayaa maalmihii habeen hore waxaa lagu heshiisiinayay magaalada labada dowlad deegaan ayaa waxaa la isku geeyay magaalada Hawaash si loo heshiisiyo oo dagaaladan dhiiga badan ku qubanayana loo qaboojiyo hase yeeshee lama sheegin wax ka soo baxay oo heshiis ah oo lagu qaboojinayo dagaaladan xooggan ee ka socda galbeedka deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya sidoo kale waxaa la soo sheegay inay heshiisyadaasi afgaran waa ku dhacay qolada kalena ay ku qoosashay laguna soo kala dareeray hase yeeshee wax dagaalo xooggan oo halkoodii ka sii huray lama soo sheegin laakiin dagaalo yar oo goosgoos ah oo labada ciidan u dhaxeeya ayaa la soo sheegayaa meelihii maalmihii hore la kala joogayna waa la kala joogaa hase yeeshee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaad moodaa sanadkan inay dhaxda ka xidhatay ayna marnana u joojin doonin Canfar dambe weerar soo qaada sharcigana la hordoono maamulka Canfarta iyo cidda ay hogaaminayaanba maamulka Canfarta ayaa waxaad moodaa deegaanka Soomaalida in dhayalsanayo oo ku tilmaamayo maamul yar oo ka awood yar siyaasadana ayagu uga horeeyaan maadaama hadallada Canfartu ay jeediso ama federaalka u dirto ay ayadu Canfarta hadalkeeda la tixgeliyo Soomaalidana inta badan aan hadalkooda aad loo tixgelinin Canfarta ayaa ismoodaysa inay Soomaalida kaga horeyso xagga heer federaal ama siyaasadda federaalka ee dalka laga xukumo Canfarta oo la sheegay inay waqtiga Cabdiilay maamul yaroon aad deegaanka Soomaalida ku soo moon jirin ay ahaayeen ayaa waxaa la sheegay hadda inta isbedel ku dhacay inay awoodoodu kor soo kacday dagaalo xooggan galeen inay guulo waaweyn ka gaareen hase yeeshee ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa marna ayagu aan u liitayn Canfarta xalayl ciidanka deegaanka Soomaalidu waa ciidan caan oo la yaqaan ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ayagu gabi ahaan dagaaladii la soo galay cagta waxay mariyeen maamulka Canfarta ciidankan oo ahaa ciidan dagaalka iyo firfircoonida dagaalada hawlgallada caan ku ahaa oo guulo badan soo hoyay ayaa waxaa la sheegayaa inuu hadda magaalooyinka waaweyn ee la isku haysto inuu gabi ahaan asagu gacanta ku hayo maamulka Canfarta iyo maleeshiyaadkooduna dusha ay ka daawanayaan ciidanka dowlad deegaanka oo ciidan tira iyo tayaba isku filan ayaa waxaa la soo sheegay Canfartu inay wali waraaqaha gudbinayso heer federaalaha oo ay ku cabanayaan in ciidankan laga dulqaado dhulkana uu dhul Canfar yahay hase yeeshee deegaanka Soomaalida ayaa wuxuu ku daawanayaa qaabka ay Canfartu wax wadaan korkan uu ka fiirsanayaa marna uu sheegay inuu dhag jalaq u siin doonin hadallada ay Canfartu u dirayaan heer federaal labadan qoomiyadood ayaan la garanayn goor uu dagaalkoodu soo dhamaan doono hase yeeshee khubarada dagaalka ayaa waxay sheegayaan ilaa ay heshiis dhulkan laga gaaro inuu dagaalkaas heshiis laga gaaro dagaaladan xooggan ee marka ka dambeeya ka sii daraya ayaa waxaa la sheegayaa inay dowlad deegaanka Soomaalidu sanadkan aad ugu diyaarsan tahay inay Canfarta ka xoreyso dhulkii ay hore u qabsatay Canfarta ayaa ku doodaysa inay dhulkan ayadu leedahay marnana ay ka tanaasuli doonin inay dhulkeeda dib u soo ceshato hase yeeshee ciidamada dowlad deegaanka ayaa moodaa inay aad ugu sii qoriyaanka Soomaalidu wali dagaalkii way sii wadaan mana joojinayaan qaabka ay u socdaan hadda la fiiriyo tani kulanti dambe waxaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.